بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعن وناكسن داوديل كسو دhowaada barnaamijkii xisaabadnaa tartanka halabuurka ganacsiga waa barnaamij sanadlaha oo bil kasta oo bisha barkisan Ramadaan taad ka daawataan warbaahinta kala duwan ee Soomaaliland barnaamijka waxa lagu talagalay in ka faa'iideystaan guud ahaan dadka ku hadla afka Soomaaliga waa barnaamij lagu soo bandhigayo hibada iyo halabuurka ardayda ku jirta jaamacadaha kala duwan ee dalka gaar ahaan ardayda sanadkan waxa uu si toos ah barnaamijku u taabanaya arrimaha ganacsiga oo uu maalgelinaya isla markaasina ahmiyad u siinay bangiga caalamiga ah ee Premier Bank oo ku xidhan tahay ganacsato fara badan iyo bulsho fara badan oo ka mid ah bulshada afka Soomaaliga ku hadashay waxaan u yeeri doonaa barnaamijkan inaynu guda galo gudoomiyaha guddiga kala saarida ahna khabiirka barnaamijka inta badan halabuurkiisa culintiisa kale Professor Mubarak Ibrahim R waxaan u yeeri doonaa ganacsade عبد الرحمن برالي وحكلوا لي دونا جناعسده عبد يوسف آر وأهم الكلاء شركة سجلت وحني دونا جناعسده إسماعيل ميعاد وكم عبد يوسف آر cabdi yuusuf aar waa ganacsade waxa uu 15 sano ee u dambeeyay ahaa maamulaha guud ee sharikadda caanka ah ee Sagalcad waxa uu hore uga soo shaqeeyay sharikaddii Bitag oo uu ahaa madaxa suuqgeynta iyo iibka sharikadda MSG Trading Company oo uu iyadana ahaa madaxa iibka waxa uu cabdi digriga koowaad ku qaatay maamulka iyo ganacsiga waxaanu hadda wadaa digrigii labaad waa kuma Cabdiraxmaan Cali Xirsi Cabdiraxmaan Cali Xirsi waxa uu shahaadada heerka labaad ee masters ka qaatay jaamacad ku taala dalka Malaysia waxaanu ku takhasusay arrimaha maamulka iyo ganacsiga waxa uu ka soo shaqeeyay hay'adda PSI oo uu maamulayay mashaariic kala duwan sidoo kale wuxuu ka soo shaqeeyay hay'adda Africa Education Trust iyo Handicap International Cabdiraxmaan waa asaasaha iyo gudoomiyaha sharikadda Hasi Consultant oo hadda ka shaqeysa dhammaan geeska Afrika isla markaana xarumo ku leh magaalooyinka Hargeysa, Jigjiga iyo Muqdisho waa kuma Ismaaciil Meecaad Ismaaciil Meecaad wuxuu shahaadada heerka labaad ee masterta ka qaatay jaamacad ku taala magaalada London Ismaaciil waxa uu ka mid yahay maamulka sare ee sharikadda Meecaad Group waana asaasaha xarunta tababarka iyo shaqaabuurka dhalinyarada ee loo yaqaano Borama Job Center taas oo kumanaan dhalinyaro ahi xirfado iyo carbis shaqaba kaga faa'iideysteen Ismaaciil Meecaad waa aqoonyahan ganacsato ah oo aqoon iyo khibrad durugsanba u leh maamulka hogaaminta iyo hal abuurka waa kuma Mubarak Ibrahim R Mubarak Ibrahim R waa hal abuuraha iyo madaxa barnaamijka tartanka hal abuurka ganacsiga waana gudoomiyaha jaamacadda Badar barnaamijka habeenkan caawa waxa ka qayb gali doona arday ka socota gobolka Togdheer waa barnaamij ay ku tartamayaan in ay soo bandhigaan isla markaasina ay sameeyaan shirkad sameynaysa audit dibadda ah oo ka baxsan shirkadda gudaheeda ama waxa loo yaqaan external audit waxaan rajeynayaa inuu noqdo barnaamij xiiso badan oo macluumaad aad ka faa'iidaan waxaan idinku soo dhaweynayaa barnaamijkaasi ee daawasho wanaagsan waxa halkan ila taagan Maxamed Jaamac Ismaaciil iyo Saciid Ahmed Maxamed Saciid سعيد waxaan jecelahay in halkan aad la socotay qaybihii hore barnaamijyada soo socdeen oo barnaamijka xisaabna tartanka halabuurka ganacsiga ee jaamacadaha dalka hore ma uga qayb gashay may jaamacadaydo dhan runtii waa markii horeysay ka qayb gasho haddaan u faraxsanahay laakiin ka qayb galo barnaamijka sidoo arkaysa marka media ma hore ma uga socotay barnaamijkan aad buu wanaagsan yahay marka laga reebo guddido ee ganacsato waaweyn oo arrinkii dadka ku aad ugu adkeeya aad u mahadsantahay سعيد waxaan jecelahay caawa ganacsatada si waaweyn ee halkan fadhida inaad miskaxdooda intay taalkaaga inaad bal isku daydo maadaama aad in badan ka fikirtay mashruucan
hadhowna shirkadaadan odhadku waxaa laga yaabaa inay hadday shaqayso xoogaysato in ganacsatada hadhow ay gasho qaarkood ay daba gasho waxaan rajeynaya aad ka dhaadhicin doonto barnaamijka halkan aad kusoo bandhigayso waxaan kugu wareejin doonaa 3 meed baad haysataa la wadaag bal barnaamijka aad haysiisa u shaqaynaysa shirkadaadu aad baad mahadsantihiin waliba ganacsatada waxay ugu noqotay business oo walaayna beeraha iyo waxaa doortaabay ahayd marka shirkadayada halabuurka ganacsiyaan wadno ciwaankiisu waa ka halkan ku xusan Somaliland External Financial Audit Firm inkasta oo aanu labada service aanu qabanayno mid ahaan aanu ugu magac daray dibna ma laha oo kambaniyada haddaad fiiriso service-ka u badan ay qabtaan ayay magacyadooda inta badan raaciyaan aan soo qaato Has Petroleum wax kale inta ka badan way qabtaan laba service baan insha Allah taala bixin doonaa service waxa weeyaan ka tala bixin qaabka dhaqaalaha shirkadda oo inta badan accounting-ka khuseeya maadaama fiilkayguna accounting yahay waxaan ka tala bixin doonaa qaabka internal audit-kooda uu dhismayo waxaan ka tala bixin doonaa insha Allah sida ay u diyaarsanayaan financial statements-kooda waxaan ka tala bixin doonaa qaabka ay cashuurahooda u nidaaminayaan waxaan ka tala bixin doonaa haddii alla ku samogol yahay sida cashuuraha maarta ay u nidaaminayaan iyo abka iyo software-ka ay tahay inay u isticmaalaan accounting software badan ayaa jira sida aynu ognahay service-ka labaad waa service-kan aan ugu magac darnay bahasha maartay halabuurka oo ah external audit iyo internal audit inta badan dadka in magac ugu cusbaadaa dhici karta halabuur ganacsi weeyaan oo sida uu magacooda qaar ugu cusboonaanayaba uu yahay hal abuur cusub oo si fududna lagu hirgelin karo marka shuruudihii hore ee loo dhigay la eego shuruudihii hore ee ka soo baxay xarunta tacliinta sare waana anagu laastigii u hayno insha Allah waxaanu ka tala bixin doonaa labada service baanu qaban doonaa insha Allah ganacsigu iyo halabuurku waa mid si fudud lagu hirgelin karo uma baahna wax ka siyaadsan xafiisyo iyo gaari sidaan ku xusnay proposal-kayaga waxaan ugu dhiirigeliyay arrinkan wuxuu nagu soo dhacay halabuurkan intii aan wadnay hay'adkayaga waxbarasho waanu imka sanadkii u dambeysay aan ku jiro macallimiin badan baan ugu dhiirigeliyay inaanu bilowno oo uu booskaasi u bannaan yahay waxaa kaloo dhiirigelinta qayb ka sii ah maxad runtii aan filayo inuu qayb weyn ka qaadan doono insha Allah taala horumarka dhaqaale waddanka oo ICPAS la yiraahdo oo waa dhaweyd wasaaradda maaliyaddu ay maaragtay xariga ka goysay ay furtay ICPAS waxaan rajaynaynaa inuu liisansiga caalamka uu soo saaro liisansiyada maaragtay internationalka ay qaataan nimanka xisaabiyaasha wuxuu ballan qaaday ICPAS in insha Allah way aan soo koobo ganacsigani wuxuu faa'iido ku yeelan karaa horta shaqo abuur wuxuu faa'iido ku yeelan karaa inuu kobciyo ama bilaababa industry-ga iyo suuqa accountancy waa ka shaqaystaan nimanka accounting-ga oo la yiraahdo accounting service industry waanu naqaanaa shirkadaha CPA firms-ka la yiraahdo certified public accounting firms oo USA ka jira oo industry-gan dabcan ka shaqaysta laba organization hore oo ka mid yahay waayeel ayaa isku dayay inay external audit-ka ay sameeyaan laakiin maadaama ay wax ka badan service inta ka badan ay qabtaan tababaro entrepreneurship-ka iyo waxa quseeyo way maaragtay u saamix weydeen external audit-ka iyo service-ka kala bixin aad u mahadsantahay Saciid waxaan filayaa inaad barnaamijkaagii soo bandhigtay mashruucaagiina ay ka bogteen xubnaha guddiga halka fadhiya ganacsatada waxaan ku soo dhaweynayaa ugu horreysay Cabdi Yuusuf Arbal inuu qiimeeyo mashruucaasi uu soo bandhigay Saciid oo ka socda jaamacadda gobolka Sanaag magaalada Togdheer haddii aan qiimeeyo waxaan siinayaa scorekaan siinayaa waa 550 550 waa tahay Cabdiraxmaan Buraale marka koowaad horta waan sidii caadiga ahayd waan hambalyeynaya sidaad u fahansanteena waa aad baan uga helay guul waan ku rajeynayaa konton baan ku bilaabaya waa tahay
aad waa mahadsan tahay ugu dambeyn Ismaaciil Macaad maxaad wajigii koowaad ama qiimayntii koowaad aad siisay kooxda ka socota jaamacadda Togdheer waxaan siinayaa boqolkiiba 60 boqolkiiba 60 aad baad u mahadsantihiin Siciid iyo Maxamed Jaamac waxaan jecelahay halkaa waxaad haystaan 10 daqiiqo haddii guddigu ay u baahdaan su'aalo dheeriidi weydiiyaan oo kale ayaa laga yaabaa ilaa 15 idii gaadho laakiin waxaan rajaynayaa 10 daqiiqo kaga faa'iideysan doontaan isku difaacdaan su'aalaha guddigana aad ku harataan in dhibcoodii hore aad la idii sii kordhiyo aanay dib idinka naaqushin oo qaarkood aan waxba idinkala hadhin haddii aad su'aalaha ku barkataan waxaan ku wareejin doonaa mikrofoonka xubnaha halkan taagan Siciid iyo Maxamed waxaan ugu horeyn u dhiibi doonaa Cabdiraxmaan Buraale inuu noo bilaabo su'aalaha horta waa mahadsantihiin si qurux badan ayaad isu sharaxday su-aashaan isweydiinaya marka koowaad waxay tahay arday jaamacad dhigata iyo barnaamijka culayskiisa siday isu qaadi karayaan auditing iyo financial services marka la bixinayo waxa la iibinaya waa expertise khibrad iyo aqoon marka ma waxaad soo karaysanaysaan dad khibrad iyo aqoon leh mise idinka laftiina ku jabinaya haddaad soo karaysanaysaan tusaale ahaan auditor certified oo shahaado haysta oo shaambad haysta oo la garanayo wuxuu yahay muxuu idinku kacayaa ma idiin qiyaasan tahay kharash intee leeg buu idinku kacayaa marka horta su-aashaasaan rabaa inaad marka hore intaana wax kalaba gelin sidaad sheegtay dee dabcan surfaceku waa surface maaragtay dad certified ay qaban karaan annagu dabcan de waxaan u haysanaa dherigu marka la shido dee uu diiran yahay ee dabka laga dhigo laakiin marka loo daayo sidiisii yahay mar hore laga soo qaaday wuu qaboobay annagaa imika aqoontigii dhigana auditkii oo bisayla ayaa nagu jira marka waanu soo kiraysan doonaa insha allah waxa aanu naga caawin doono insha allah waxba uma baahnin dabcan dabageli maynu Maraykan iyo liisansano badan inaynu dabagalo laakiin inagiinba bilaabayna hawsha waxay naga caawin doonaa ICBAS insha allah dad certified haysta oo iyagu soo shahaadaysiinayna siiyaan dee macallimiinteediyo dabcan aanu igana oran doono in badan baan hadal nala dul taagniideen bal waa kan is tijaabiye idinkana aanu oran doono insha allah kaasaasay noqonaysaa insha allah okay aan halkaa sii dabagala consulting servicesku ama in general yani adeegyada la talinta sidaan hore u sheegay dadka ka shaqeeya waa dad aada u qaaliya ma aragtaa oo ay adag tahay in maxaa la dhahdaa la kiraysan karo soo haddii tusaale ahaan aan idinku idhahdo ii sameeya external audit lacag intee leg baa charge garaynaysaan haddii ilaa waxaan idinka rabaa siifiyo dadka ii qabanaya shaqada haddaan ka dhex waayo CPA ama ACCA ama dad maaragtay khibrad badan u leh iyo waayo aragnimo waxaan u qaadanayaa inaanay ii dhacayn shaqo wanaagsani markaa waad ku qasbantihiin markaad ii imanaysaan proposalkiina inaad dad noocaasa keentaan soo lacag intee leg baad tusaale ahaan oo kale aad charge garaynaysaan dadka hawsha qabanaya maxay idin charge garanayaan ma xisaabtanteen haa dabcan dee laba su-aalood oo isku dhex jiray inay yihiin baan filayaa ka hore waanu ka jawaabnay waanu keensan doonaa shaqaale maaragtay qanciya adeegyada dadka aan ugu qaban doona adeegyada taas halkaas weeyaan ta kale qiimo u samaynta waxa pricingka la yiraahdo suuqa ayaa go'aamiya xafiiskaagan iyo taygaagan iyo waxa nima go'aamiyo supply iyo demand maxaa waxan baahi loo qabaayo maxaad ka haysaa un baa go'aamisa waxaan filayaa inuu waqtigiisii joogo waqtigan dabcan auditorska waxay ku khasban yihiin inay maaragtay shaqada nala bilaabaan waxaan pricingka waxaanu eegi doonaa suuqa haddii maaragtay madaxdayada iyo dadka aanu la tashanay ayaa nala dejin doona insha allah pricingka laakiin annagu waxaan ku xisaabtanay halkii saac in lagu qaban karo sida maaragtay estimationkaygu yahay in lagu qaban karo $10 oo quriya oo qofkii aad maalinkaa maaragtay 24 saac aad tala bixin u siisay aad $240 ka qaadi karto marka waxaa la samayn karaa halka mushahar uu kaa dooni lahaa inta badan ganacsadayaal waa tiinooyadu ku dabala waxa qaadataan maartay sheerka
maaragtay nimanka auditors-ka ah anagu bilayaal u qaa sidii waashbaanada bilal maaragtay u qormayno waxaanu la geli doonaa contract marka 6 biloodba waxay maaragtay company-gu shaqeeyo contract ay ku qaadan doonaan insha Allah taala su-aashan ku weydiinaya waxa weeye hawshan horta runtii auditingku waa hawl waddanka aada looga baahan yahay marka waxaan horta kuu sheegaya inaanay wax cusub oo fikir cusub aanay ahayn ee ay jiraan so many auditing firms ka shaqeeya waddanka su-aasha aan idinka idin weydiinaya waxa weeye waddankeenna waxaa jira shirkadaha ama dadka xisaabaadku aad bay sensitive uga yihiin in la baadho iyagoo ka cabsi qaba in guntooda la ogaado tusaale ahaan waxa uu faa'iido sida uu socdo hantidu haysto waxaa weliba in yar baa fahamsan sidee ugu qancinaysaan dadka inaa adigoo aydaan isgaranayn oo qof fresh oo jaamacad ka soo baxay aad company gudihiisii intood ku dhacbaad tidhaahdo waan idin baadhayaa sidee baad qofkaa ugu qancinaysaa inuu idin aamino oo uu idin trustgareeyo waa mid qodobka labaad maxaa isticmaalaysaan tools nooceeya khibrad nooceeya softwares nooceeya imika tusaale ahaan company kasta wuxuu leeyahay software u gaaro xisaabaada imika tusaale ahaan companygayga oo kale dee wuxuu leeyahay software gaaroon isticmaalo idinku markaad audit garaynaysaan aad companygayga audit garaynaysaan softwareadoo dhan ma aqoon baa u leedin mise cid baa sidaa Cabdiraxmaan sheegayay u applicable baa u soo kareysanaysaan iyana waa mid qodobka ugu dambeeya waxa weeye in aad bal nagu qanciso faa'iidada aad ka sameynaysaan barnaamijkan iyo shaqo abuurka uu cid u sameynayo maadaama aad dad expertisa aad kareysanaysaan ma local baa ka kareysanaysaan mise dibad baa ka kareysanaysaan saddexdaas su'aalood waan idinku badiyay raalli ahaada waad mahadsan tahay su-aasha hore ugu celi sidee dadka ugu qancinaysaan inaad inuu idin aaminin trust garaan ha wuxuudii baa gudihii u galeysaan waxa leeyahay nidi waan idin audit garanaynaa marka dadkeenuna waxaan ma fahamsanaa markaasay ugu qancinaysaan waan fahmay marka hore wax baadhaa waa internal audit iyaga marka hore oo company-gaasi internal audit baa baadha waa sababta uu leeyahay external siduu u aaminayo qofka external audit ugu aaminsiinayo waxaan badbaadinayaa company-giisii waa inuu internal auditku waa la sii ogyahay goortu yimaado iyo goortu soo hawl galo anigu markaan external audit ahay isagu maan ka qaadanaya overview yar oo uu siiyo oo ku saabsan company-giisa saasoo ay tahay waxaan ku qancinayaa company-giisa waxa gudaha company-giisa ku jira ama balance sheet-kiisa ka dhacaya oo result sax ah inaan soo gudbiyo taasi waxay ka saaraysaa sidaan aniga laysii ogaanin cidina aan iga sii warqabin goorta aan sameynayo iyo xilliga aan sameynayo sida aan u sameynayana waxaan ku qancinayaa cidda markaasi aan u tagayo waa run oo ma ogola inta badan in ganacsatadu la ogaado hadhaagooda laakiin waxaan isku dayaynaa anagu inaanu ku qancino marka ay noogu yimaadaan sababtoo ah waxaan noo shaqayn doonaa ama aan qoran doonaa cid experience u leh certificate-keedina sidata nagana caawinaysa inay hawshaasi qabtaan si loogu qanco certificate-kooda tusaale ahaan oo kale adigaan kuu yimi marka aad doonayo inaan kuu soo bandhigo ama meel aad iga soo aragto social media oo kale waad ii timi waxaad weydiisay waxaan qabanayo saan u qabanayo cidda ay qabanaysa waxaan isku dayayaa inaan kugu qanciyo miiska kuu soo saaro ciddaasi oo certificate-keedii hayo dokumentigeedina xareysan yahay si aad adigu marka hore ugu qanaacdo adigu marka aad ku qanacdo markaasaad ii ogolaanaysaa inaan meeshaadi sameeyo marka waxa keenaysa qanaca inaan marka hore kugu qanciyo cidda ii qabanaysa way dhan tahay laakiin de markaad tiri external auditka qof aanay garanaysa ugu qancayaan internal auditka ma la saaxiib bay yihiin waaba yaaba internal auditka ma saaxiib kolleyba internal auditka wuu yimaadaa ma aha qof ay maaragtay waa qof maaragtay CAO-ga u shaqeeya sidoodii un weeye tabtoodii way kala madax bannaan yihiin midna CAO-ga u shaqeeya midna board of directors-ka see naqaano marka tabtii un weeyaan siday internal auditka ugu qancin bay external auditkana ugu qancayaan su-aashii igu celi labaad ها طبعا maxaa isticmaalaysaa طبعا inta badan auditku tool u gaar ma isticmaalo sida accounting oo kale quick book iyo waxan ma isticmaalo laakiin procedure ay isticmaalo procedureska waxa kamid ah inuu fahansan yahay software walba company uu isticmaalo hada PhD isticmaalo quick book uu isticmaalo waxa kale marka fahankayaga aanu fahansanay softwareska anagu taan document ku diyaarinayno maartay ku diyaarinayno xogtayada taas waan samayn doonaa hadda nooma diyaarsan laakiin way fududahay si maartay software loo sameeyo
laakiin taa waxaan u arkaa inay ka muhiimsan tahay inuu softwareska company-gan uu isticmaalayo uu og yahay uu fahansan yahay kuwii bishtiri wahaakada iyo kuwii samaysteen marka insha allah su-aashii ugu dambeysayna waxay ahayd profitka igu yara celi wax yar macnihii barnaamijkiinan maxaa ka macaashaysaan bal iyo noo yaro sharax weliba xisaab ahaan noogu sharaxo maadaama aad auditors tihiin oo accountingkiina aqoon badan u leedihiin bal ilbiriqsi cost of goods sold-kii iyo revenue iyo wixii saa u kala jaro bal nagu qanacdi ها كل ده waxaan u maleeyaa inta badan inuu ka eegayo maartay shirkadii uu maartay isagoo ka soo shaqeynayay oo revenue internal wixii uu xasuusan yahay aad buu mahadsan yahay marka taa wax weey sidaan profit ka u sameeynaa waa sidaan adeega u qabanayna anaga dabcan waxa u badan naga baxaya marka energy dadka laga reebo iyo maartay dokumentiyada aan isticmaalayno waxaan u badan naga baxaya shidaalka gaariga naga baxaya marka service adeega dakhliga aanu ka helno waa aniga kugu soo sheegay kuwi halkii saac waxaanu estimate gareyn in lagu shaqeyn karo $10 maalinkii adeega aad u qabato waa $240 marka hadda auditna sidiisaba hadaan u iska dukaan loo audit gareynayahay dee maalin qoriyo laguma qabto oo waxa lagu qabtaa wax inta كله ها سيدك بشي وكو قرا ماشي مسوي وين قياسيه ما مسوي كان قرتي ما هكا waxaan qiyaastay inaanu sameyn karno 100 surface oo kale 100 surface inaanu sameyn karno bishi ma sanadkii inaanu sameyn karno 100 surface sanadkii ma bishi 100 surface lacag intee lag ba ka soo baxaysa lacag intee lag dabcan halkii saac hadii lagu dhufto $10 ba ka soo baxaysa halkii saac qori hadaad u shaqeyso company laakiin wax inta ka badan hadaad u shaqeyso dee 10 kun baad ku sii dhufsan insha Allah zero ba xagga dambe kaga darsami doona insha Allah zero xagga baadsantiin Saciid iyo Maxamed Togdheer University waan soo dhaweynaynaa bilowgii baad nagu qaado aftaanimada reer Burco ka muuqata marka aad iyo aad soo dhaweynaa marka koobaad waxaad ku bilowday in aw service-kan oo kala dalka jirin sida opportunity-ga kugu qoran SWOT analysis-ka aad plan ku sameysay ma burcayna ka jirin mise Soomaaliland bayna ka jirin aan kugu daro shaqooyinkan qabta mid kamid ah waanaan urur NGO anoo manager oo manage gareeyo sanad kasta auditor report ka external ka waan sameeyaa mashruuca iyo socodshadiisana ku xiran tahay already dad jira ay sameeyay marka ma oran kartid dalka ma jirto taasoo qodob koobaad qodobka igu xiga ninka sameeya isaga expert ah marka gacan labaad ma hadda expertise-kii mustawihii adigu saad sheegaysaan ma joogtaan oo dad baad soo hayargaraysanaysaan marka sidee qiimo ahaan markaad eegto oo xogaa hansileeyahay malaha way idinku yar balaaratay qaybta xisaabtii tooskii sidee qofka hadda jira already ku shaqeynaya isagu khibradii leh qiimaha uga qaadayo adoo had uga dawanaan kartaa adigoo gacan labaad isticmaalayo qof khabiiro soo hayargaraysanaya ama soo karaysanaya hadda su-aashii hore dee waad i weydiisay misaad ka jawaabtay intaad i weydiisay baad ka jawaabtay waxaa tidhi maaragtay way jiraan haddana waxaa tidhi dee waa bal noo sheeg miyay waddanka ka jiraan haddana waxaa tidhi anaaba ii shaqeeya marka waxba halkaa maaragtay waxba ku noqon maayo su-aasha xigtaa waxay tahay bal ka waran dee waxaan u fahmay labadiinnan gacmood profit badan ma soo saari kartaan saamiyaan u fahmay waa laydinka raqiisnaan karaa haddii laka raqiisnaado dee waa marna laka dheereeyey insha allah laakiin mar haddii aynu cusubnaho bisin lahay suuqana waxaa lagu galaa sidiisaba qiimo raqiisa lagu galaayo hoose oo aada hoosaa lagu galaa dabcan aad baa bas tigaaba dhacay burcad bayskiinu yahay businesska u badanna Hargeysa iyo xafiisyada dawladda iyo injooyada halkan ay u badan yihiin marka ma soo guureysaan oo halkan xafiis ma ka furaysaan noloshii iyo deganaanshihii iyo kharashka ma ku xisaabtanteen mise burcad maaragtay online ka soo gelaysaan bahal bismillah waan fadhigay waa burco haddii odhog loo baahdo in Hargeysa laga sameeyo soo nagan haysana gaarigii kanaal soo shidaalna soo bixino soo lahaynaa nidaamkii wixii waan soo sameeynaa waa soo guriga noqonaynaa halkii waan noqonaynaa laakiin wuxuu waa tarkii ka bedeli mayno gobolka Togdheer buu ahaanaya anaa ku noqonayo insha Allah taala waxaan tiri dabcan Hargeysa ku qoray meeshan oo xafiiskuna Hargeysa baan ku qoray barnaamijkana waxa laga yaabaa lacag bixintiinu inay 3 bilood ay gaadho 3 bilood oo intaan jaamacadda soo dhameynayno
dee joogi mayno gobolkii ragge xaggana usoo ganacsi tagteen laata habshilbooka idinla joogo kasoo carar magaaladiisii xaggaan insha allahu tacaala waad noo diyaarin doontaa wixii dee insha allah aad baa u mahadsanyihiin shacabka loo tumo سعيد يا محمد أدبر لكم مهنا غيا واحد قشين دفاع دير دفاع هذاك بعد قشين إنما كي كان هذا هذا أورد كي حولوا ذي والله قشين كل أورد دنا ويسمعنا يجي لفت جودو واحد قل دونا قيمتي نيل لبعض بلهذا بوحيد استفاعي نك صوب حي إن واحد كبلا يا مركن إسماعيل معاد إسماعيل هذه كسرت قبل كتوقدر شعبان قبل كتوقدر ومركن استفاعين محد دبعها يورس كبدلين أن رنتي أدبر مركل السلام يا marka hadalka guud iyo istifaacidda guud iyo aftaanimada marka laga yimaadeen nambarada aan isku geegeysto qiimeyntii saxda aan sameeyo 5 dhibcood baan ka jaray 5 dhibcood xisaabta hore ka jirtay waa tahay Abdi Yusuf intii hore ku deysay waa tahay ugu dambeyn Cabdiraxmaan Buraale intii hore day waa tahay waxaan diri jeediyay wareegga saddexaad inaad guuleysan doontaan dhibciinuna inaad isoo kordhi doonaan shacabka igula sii dhaweeyaan kooxdan u dambeysay habeenkan caawaad la daawanaysa kooxdii ka socotay jaamacadda gobolka Togdheer waxaan u rajaynayaa inay guuleystaan isla markaasina ka soo bixi doonaan gurbiyada dambe iyagoo guuleystay waxa kale dhammaanba u mahadnaqaya hawlwadii barnaamijka ka qayb qaatay jaamacadda Badar oo barnaamijka marti gelisay bangiga caalamiga ah Premier Bank oo isaguna si joogta ah barnaamijka u maalgeliya hawlwadada kale ee madasha ku sugan iyo dhammaanba cid kasta oo barnaamijka gacan ku lahayd fikir iyo xoog intaba barnaamijka kale xiisamada kala mid ah koorta ku kulmana dhammaantii waxaad ku dhaafinaa kulanti dambe oo xiiso badan Ramadaan Kariim habeen wanaagsan oo wacan walaal safarkaygii Turkiga saacada ka hadhay lacagta inta leegna safar lama gali karayo waxaan doonayaa lacagta inaan ku sii dhiibo si aad iiga soo daba dirto waa dahooy taleefanka carruurta kula haystee hayga qaban waaye walaalay sodagii ilbaxa si ka noqotay maanta had ma laga tagay wararka aad ka sheekeynayso maxaa lacag laga soo daba diray iyo taleefan aad ka soo hadasho kugu hawlay soo tan Premier Bank noqotay hawl fududayn oo halkii aad tagtaba xoolaha ku daba sidaysa oo aan koon baba ku leeyahay lacagtaan dhigtay ma iyaga iga soo daba diraya balina mari ku soo dhawaada Premier Bank maxay idinka caawiyaa Mastercard baan u baahana hadda dalbo oo hadda hel